السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا القناة فضيد ميديا حديات كويس بتاع القناة سبسكرايب لايك شير اند كومنت قبل لك فرصة ولا ساعته مقالة أن سوقرين ما أنت محن إيه ونا محاولنا جنالكي أم يوتيوبكي ضد ميديا أو جستي دع عدوين كدب خلاف صلاح قلي أنا نفتي كشقين سي يا مامو ضد ميديا أيا لو جستي دع عدوين كاسو maalintii lagu qiyaasay inuu yahay youtuberka Soomaalida kaliya ee u badan inuu maalintii soo geliyo muuqaal aad iyo aad u balaaran laakiin nasiib daro maanta waxaa loo geystay dhac aad u weyn durdur media maamulka iyo dhalinyartii ka shaqeynaysay inkastoo ay jiraan dad badan oo hore ugu soo shaqeey jiray kuna soo caan baxay inay ka shaqeeyaan ama ku soo caan baxeen in lagu arko ama ka soo muuqdaan janaalka durdur media kuwaas oo hore uu tagay hadana dadkii kale ay ka daba tageen ayaa ah janaalka kaliya dad badan soo caan bixiyay laakiin abaalkiisii looga dhigay mid uusan mudnayn ma asiga asxaan lahayn ama dadka ay asxaan lahayn waxaad arki doontaa muuqaalo ka hadli doonaan youtuber caan ah waxaana kamid ah sida barbaarta media نجيب هذا نجيب يلي عات official كلتي وعن وناكسن داودياشا ku xiran barbaarta media markale waxaan idin leenahay kulan wacan oo wanaagsan waxaan daawadayaal marka aan eegi doonaa sirta iyo sidoo kale arinta ka dambaysa in Xasan Toob YouTube-kiisa durdur media habada in laga saaro dhabaantii adaynu nahay bahda barbaarta media falkaasi lagula dhaqaaqay Xasan Toob aad baan ugu xunnahay in markaasi wajigaba xaasi uu la kulmay maadaama YouTube-kaas uu ka galay jawdi fara badan waqti fara badan markaas uu galiyay lana markaas hubo in badan inuu yahay YouTube ugu badan ee soo galin jiray muuqaalada ugu badan ee dhinaca YouTube-leeda oo dhami Soomaalida oo dhan YouTube-leeda marka la fiiriyo waa ninka ugu badnaa isaga ayuu ahaa markii habeenka 6 iyo 5 4 marka weerta ayuu ku soo tuuri jiray laakiin YouTube-kii ayaa guud ahaanba markaasi hawada laga saaray sidee wax u dhaceen maxaa sababay in sheekadan ay imaado in YouTube-ka Xasan Toob